بسم الله ربي يسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدنالي ومروين كسو دوادا قراتكاب أكاديمي كسو دوادا برشادة كريبتو كاراسيغا غاراهانا قيبتيدا beginner level course. عشر كينان مانتي إن شاء الله تعالى وحان وغهل الدونا ولي إنو صعودة decentralized finance DeFi ayaan ku guda jirnaa weli waxaan soo marnay ilaa iyo dhowr lix cashar ayaan soo qaadanay oo aan uga soo hadlaynay decentralized finance noocyadiisa sidoo kale decentralized finance-ga qaabka xaaraan uu ku noqon karo iyo siyaabaha xalaal uu ku noqon karo waxyaabahaasi ayaan soo hadal qaadnay ama aan ka soo hadalnayba maanta insha Allah taala casharkan waxaan ku baran doonaa sidee ayaa loo ogaadaa ama lagu baaraa coinka inuu xalaal yahay iyo inuu xaraan yahay sidee ayaa lagu ogaan karaa anagoo marka ka eegayna waxyaabihii aan soo marnay oo ahaa liquidity pool scheme swap miyuu ku jira sidoo kale miyuu ku jira asset liquidation miyuu ku jira waxyaabahaasi oo dhan shantii qodob aan soo marnay anagoo ka eegayna marka ayaan fiirin doonaa coinkani inuu xalaal yahay iyo in kale haddaba marka sidee loo baaraa coinka xalaalnimadiisa ayaad u jeedin marka sidee ayaa loo baaraa ama lagu ogaan karaa coinka xalaalnimadiisa haddaba waxaa jira dhowr siyaabood aad ku ogaan karto ayaa jira marka siyaabahaasi ayaan insha Allah taala aan ku baran doonaa casharadani qaar kamid ah marka waxyaaba aan rabno inaan idinkula wadaago ama qaabka aad ku baari karto waxaa laga yaabaa inuusan shaqaynaynin marka waan isla arki doonaa si aad u ogaato marka adiguna marka inay jiraan waxaasi aad u dareento ayaan kula wadaagi doonaa haddaba marka ugu horeyn waxaan tagi doonaa Google-ka aan isla tagi doonaa halkaasi aan kasii ambaqaadi doonaa casharkeena maantay marka haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka Garaadkaab Academy subscribe ta inoo saar haddii aad nala joogtayna waad ku mahadsantahay kun iyo kow jeer waxaan ku leenahay adiguna u share garay walaalahaga asxaabtaada u share garay commentiga nagula wadaaga sidoo kale waxyaabo adigu aad rabtiin oo danaynaysiin oo aad ka heshiin nala wadaaga qaybta commentiga si aan marka baahidiina aan marka u daboolno ama baahidiina si aan uga soo hadalno midaasina nagu caawiyo insha Allah taala marka casharkeena aan gudan gali doonaa oo waxaan isla tagi doonaa Google-ka ina marsha okay hagaag waxaan joognaa qaybtaani lagu magacaabo coin market cap-ka ayaan joognaa hadda qaybtiisa hore wajigiisa hore dhammaan halkan waxaad u jeedaa waxyaabihii marka coinski ayaa ku jiray oo tiradooda gaarayay 2.4 milyan oo marka crypto ayaa jira exchanges-ka jira waa 771 exchanges ayaa jira balse qaybahaasi waan ka soo hadalnay hadda kuma laabanayno saad u jeedin marka waxaan rabnaa coinka inuu xalaal yahay iyo inuu xaraam yahay sidee ayaan ku kala ogaan karaa midaasi weeyaan mid aan rabno maanta inaan marka xoogo marka aan idinka tuso macluumaad haddaba marka si aan u sameeyno midaasi waxaan soo qaadan doonaa laba coin aan tusaale ahaan soo qaadan doonaa coinka ugu horeeyo waxaan leenahay waa Aave waaye Aave ayaan halkan ku qori doonaa kadibna Aave ayaan isla eegi doonaa Aave markaan dhano kadib waxaan leenahay waan ku dhufan doonaa Aave markaan ku dhufano kadib waxaan arki karnaa marka inaan galayno marka Aave faahfaahintiisa ayaa halkaasi inooga soo muuqanaysa saad u jeedinba Aave qiimihiisa hadda wuxuu marayaa 348.7 ayuu marayaa minus wuxuu ku jiraa marka 8.09% ayuu ku jiraa ayaa lagu leeyahay sidoo kalena halkan waxaad u jeedaa market cap-kiisa 5.22 billion inuu yahay volume-kiisa 24 saac la soo dhaafay qulqulka lacageed ee soo gashayna waa 1.3 billion waaye oo sidoo kale qaybtani waxaa lagu leeyahay total supply-giisa waa 16 million Aave waaye maximum supply-giisa oo marka waa infinitive waaye halkaasi lama gungaari karo weeyaan marka ama lama oga sidoo kalena circulating supply-giisa waa 15.01 million waaye almost waxaa ka harsan kaliya waa 1 milyan oo kaliya ayaa ka harsan marka waxaan rabnaa coinkani lagu magacaabo Aave xalaal miya mise waa xaraan midaasi ayaan rabnaa maanta inaan marka aan ogaano oo aan baaran karno coinska siyaabaha loo baaro qaab kamida qaabka loo baaro ayaan rabaa inaan kula wadaago haddaba si aan u ogaano midaasi ugu horeyn marka ay sidaan tahay xaaladdu halkaas ayaad imaan doontaa meesha ugu hooseysa qaybahani ayaad imaan doontaa oo taagis ay ku qoran tahay
taagis marka aad imaato kadib Aave wuxuu marka la shaqeeyaa ama ku dul dhisan yahay waa DeFi oo ah decentralized finance loo soo gaabiyo DeFi. sidoo kale yield farming ayuu marka ku dhisan yahay. sidoo kale waad u jeedin kadibna show all aad dhihi kartaa. show all marka dhahdo kadib yield farming hore aan u soo hadalnay marka qaybtii xaaraanta waaye. sidoo kale wuxuu leeyahay qaybahaasi ayuu leeyahay. waad arki kartaa DeFi inuu yahay, yield farming inuu yahay, lending and borrowing ayaad u jeedaa oo midii ugu horeysay ah asiguna sidoo kale oo qaybta DeFi-ga oo noocyadiisa u qaybsamay aan ka soo hadlaynay. qaybta amaahinta iyo amaasashada ah ayuu leeyahay. marka dhammaan waxyaabahani waxay u badan yihiin marka qaybihii xaaraanta aan ka soo hadalnay ayaa marka uu ku dhisan yahay coin-kani lagu magacaabo Aave. okay, cancel naga dhig qaybtani. midda labaad oo aad ku samayn karto oo aad ku ogaan karto coin-kani ayaa waxay tahay inaad booqato website-kiisa. haddii aan booqano oo aan ku dhufano website-ka Aave, waxaan arki karnaa marka Aave iyo website-kiisa ayaan tagi karnaa ama lana geynaya. kadibna halkan waxaad u jeedaa oo ugu horeysa in lagu leeyahay access the full power of DeFi. awood buuxda oo DeFi-ga marka hel ayaa lagu leeyahay qaybtani. okay, haddii aan soo socono marka qaybtaasi, haddii aan soo socono qaybtani, haddii aan fiirino marka waxaad arkaysiin qaybtaasi in lagu leeyahay wuxuu ku shaqeeyaa Aave is the world's largest liquidity protocol, supply, borrow, swap, stake and more. marka Aave waa marka world's largest liquidity protocol. liquidity protocolka ugu weyn ee adduunka weeyaan ayaa lagu leeyahay Aave. marka iyadoo marka waxay u tahay marka fan ayay u tahay. sidoo kalena supply ayaa kamida, borrowgi ayaa kamida, amaahdi, swapki ayaa kamida, stake ayaa kamida, miningka marka la sameynayay noocyadii miningka ay kamid ahayd stake and more iyo qaybo kale. marka sidaa darteed hadda waxaanu ogaanayba halkani boggani hore aan ka ogaanay Aave inay tahay marka mid xaaraana. sababtoo ah waxay marka la shaqeysaa ama ay ku shaqeysaa DeFi ay ku shaqeysaa. ugu horeynba waa access the full power of DeFi. kadibna waxaad u jeedaa liquidity-geeda waxaa ka mid ah swapkii, stakegii, borrowkii, lendingkii, waxyaabahaasi oo dhan ayaa ka mid ah. halkan waxaa lagu leeyahay meet Aave in interest and borrow assets. waxaa lagu leeyahay in interests hel and borrow assetsna marka amaahso ayaa lagu leeyahay. marka Aave qaafkaasi ayay u shaqeysaa oo inay xaaraan tahay marka waanu arkaynaa. halkan waxaad u jeedaa marka swapkii ayaad u jeedaa, swap ani ERC20 ayaa lagu leeyahay. waad u jeedaa stake ayaa lagu leeyahay, stake rewards from securing the protocol. waxyaabahaasi oo dhan ayaad u jeedaa marka ay ku shaqeynayso. qaabkaasi ayaad u baari kartaa. okay, qodobkani marka waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay sida coin-ka loo baaro inuu xalaal yahay iyo inuu xaaraan yahay. balse waxaa ka horeysa qaybtaasi inaad soo barato waxyaabahani DeFi-ga lagu magacaabo. DeFi muxuu yahay, qaybaha uu u qaybsamo maxay kala yihiin, qaybihii xaaraanta maxay yihiin, kuwa xalaasha goorme xalaal ay noqon karaan. waxyaabahaasi oo dhan marka koorsada ayaa si in detailisa cutub oo dhan aan uga hadalnay. marka haddii aad ka daawanayso ayaanu la jeedaa videogani YouTube-ka aad ka daawanayso ama meelaha kale, si aan marka usoo dhigno meelahaasi si ay uga faa'iidaystaan dhalinta Soomaaliyeed ayaa marka ujeedkeena uu yahay. marka intaasi kadib marka waanu garanay Aave inuu yahay coin xaaraana. sidoo kale wadada labaad oo aad ku ogaan karto coin-kani inuu xaaraan yahay inuu xalaal yahay si fudud waxa weeyaan inaad marka aad ku xiranto platformka lagu magacaabo crypto halal ee Telegram-kooda inaad ku biirto si aad ula socoto coinska marka xalaasha iyo kuwa xaaraanta halkaasi ay soo geliyaan. inkastoo coinsku aad u far badan yihiin ilaa iyo 2 milyan iyo balas crypto ay jiraan, haddana kuwa ugu muhiimsan oo dadka marka inta badan ay isla garanayaan oo popular-ka ah halkaasi ay soo geliyaan. culimadaasi dadaal fiican ay wadaan, khayr Allah siiya. kadibna waxaan tagi doonaa Telegram-ka ayaan tagi doonaa. Telegram-ka markaan tagno kadib qaybta crypto halal anagoo ku jirna page-keeda ama boggaasi anagoo ku jirna halkaasi sirjida waxaan ku qori doonaa. marka halkaasi aan leeyahay marka Aave ayaa halkaasi aan ku qori doonaa. waxaan leeyahay isla iyada ayaan ku dhufan doonaa oo page-ka crypto halal ayaan ku dhufan doonaa. kadib halkan haddii aan weyno marka waxaad u jeediin Aave ayaad u jeediin. crypto halal waaye, almashruuc maali waaye, cumla
ave lacagta laga hadlayo halkani waa ave waaye qaybtani waa Arabic marka haddii aad ku fiican tahay Arabiga qaybtaasi ayaad akhrisan kartaa oo qoraalkaasi kooban haddii aad ku fiican tahay sidoo kalena Englishka asiguna English ahaan waa midaasi iyaduna Englishka ayaad marka akhrisan kartaa ave is a decentralized protocol based on blockchain allows people to lend and borrow a number of the popular cryptocurrencies waxaa lagu leeyahay ave is a decentralized protocol based ave waa decentralized protocol based way on blockchain allows waxay u ogolaanaysaa people dadka to lend inay amahadsadaan ama ay deensadaan to lend inay siiso amaahiso and borrow ay amahsadaan a number of popular cryptocurrencies lacago oo marka cryptocurrencies ah oo caan ah inay siiso ayay ka shaqeysaa marka already waanu fahnay waxay tahay marka kadibna halkan waxaa lagu leeyahay not permitted ma banaana ama looma ogola dadka muslimiinta ah inay marka ay isticmaalaan ama ay ka ganacsadaan ama ay la xiriiraan ave ma banaana sidaa darteed marka ayaa qaybtaasi ave xaaraan ay ku tahay marka qaybtaan iyaduna waan ka laaban doonaa waxaan ku laaban doonaa coin market capka ayaan ku laaban doonaa mar kale haddaba marka haddii bag aan dhahno qaybtaan hal mar bag ayaan leenahay bag markaan dhahno kadib waxaan tagi doonaa mar kale coin kale ayaan raadin doonaa asiguna si aan u aragno coinska xaaraanta iyo ku xalaasha waxyaabaha marka ay ku kala duwan yihiin xoogo si aan u fahno kadib waxaan ku dhufan doonaa coinkani XRP Rebel ayaan ku dhufan doonaa asiguna XRP marka haddii aan ku dhufano asiguna waxaan arkaynaa halkani informationkiisa ama macluumaadkiisa halkani inoo soo galaya saad u jeediin XRP wuxuu marayaa maantay 2.40 ayuu marayaa sidoo kalena 6.79% ayuu ku jira oo minus ah ama marka hoos u dhac ayuu ku jira sidoo kale halkani market capkiisa waa 137.21 bilyan waaye volumekiisa 24 saac waa 22.74 waaye iyaduna sidoo kale oo bilyan halkan haddii aan fiirino total supply-giisa waa 99.98 bilyan waaye maximum supply-giisana waa 100 bilyan waaye marka wax yar ayaa uga harsanba circulating supply-giisa marka asiguna waa 57.18 bilyan oo XRP ah waaye marka intaasi in badan ayaan soo sheegnay hadda sharaxaad uma baahana haddii aan fiirino qaybta taagiska marka aan imaano qaybta taagiska waxaad u jeedaa medium of exchange inuu yahay medium of exchange waaye exchange-yada ayuu marka wuxuu u yahay medium sidoo kalena waa enterprise solutions waaye sidoo kale halkan waxaa lagu leeyahay marka show more dhihi karta ama show all dhihi karta halkaas waxaad u jeedaa marka waxyaabahan inuu qabanayo aad u jeedaa industry inuu yahay medium of exchange enterprise solution inuu yahay marka wax cilada halkani oo marka xaaranimadiisa marka cadeynaysa halkani kuma jiraan okay haddii aan fiirino marka website-kiisa ayaan tagi doonaa website-ka ayaan leenahay okay website-ka markaan ku dhufano kadibna halkan waxaan ka arki karnaa marka XRP ayaa halkan aan ka arkaynaa macluumaadkiisa halkaas waxaad u jeedaa marka dadka founderskiisa ah oo xubnaha ah ayaa halkaasi aad u jeedaa halkan hoos haddii aan u socono marka waxaad arkaysaa public and decentralized waaye streamlined development waaye high performance waaye low cost waaye motivated community waaye proven reliability waaye dhammaan marka waxyaabaha asiga uu qabanayo waa iska caddahay marka decentralized exchanges waaye cross currency payments waaye oo marka caalamka oo dhan marka ayuu marka paymentska globally ayuu ka shaqeeya payment journalist waaye waxaad u jeedin tokens marka dhammaan waxyaabahaasi xogtaasi oo muhiimka ayaad u jeedaa balse uma jeedid waxyaabihii hadda xaaraanta ah oo qashinka ahaa halkaasi aan kusoo arkaynay ave ma lahan XRP sidoo kale haddii aan ku laabano qaybta iyo telegramka ayaan tagi doonaa crypto xalaal halkaasi aan ka fiirin doonaa inuu xalaal yahay iyo inuu xaaraam yahay mar kale kadibna waxaan leenahay halkaasi nagey kadib halkani ave ay ku qoran tahay waxaan ku bedeli doonaa XRP markaan dhaho kadib crypto xalaal ayaan ku dhufan doonaa kadibna halkaas ayaad u jeedaa marka XRP waxaad u jeedaa asigoo English XRP is a cryptocurrency that runs on the Ripple network. Ripple is a payment settlement system
and currency exchange network that can handle the transactions all over the world. waxaa lagu leeyahay marka XRP waa cryptocurrency waaye that runs kaasoo marka soconaya ama ku shaqeynaya on the Ripple network ku shaqeynaya. Ripple is a payment Ripple waa payment marka oo system ah and currency oo lacageed exchange ah network waaye that can handle kaasoo marka qabanaya the transactions over the world. transactionada adduunka oo dhan marka qabanaya weeyaan marka fududeynaya weeyaan marka Ripple waxaad u jeediin ama XRP waxaad u jeediin inuu yahay marka xalaal ayaad u jeediin oo crypto xalaal ayaa marka sidaas inoo sheegaysa iyo sidoo kale website-kooda xitaa waan ku soo aragnay. waa haddii aad taqaana marka decentralized-ka waxa uu yahay noocyada uu u qaybsamo waxyaabaha xaaraanta sida xaaraanta ay ku noqon karaan sida xalaal ay ku noqon karaan coinska waxyaabahaasi oo dhan marka koorsada ayaad ku baran doontaa si details ah haddii aad koorsada marka aad iska soo diiwaangeliso. haddii kalena waxaad ku qasban tahay inaad ogaato waxyaabahan basic iyo sidoo kale do your own research inaad samayso oo baaritaankaaga adiga ku gaarka inaad samayso ayaad ku qasban tahay marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa casharkani maantay inaan isla fahnay sida coinka xalaashiisa iyo xaaraantiisa lagu kala ogaado qeybaha ugu muhiimsan ayaan insha Allah taala idin kula wadaagayay. waxaan idin leeyahay marka dhamaantiina soo dhawaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.